halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida ciidamo Soomaali ah oo xasuuq ba'an ka geystay gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigray waxayna si gaar ah u bartilmaameedsadeen sida xoguhu sheegayaan kaniisadaha iyo baadariyaasha waa wadaadada Kiristaanka waxa sidoo kale ay soo bandhigeen siyaasiyiinta Tigrayga waxyaabaha ay ku kala garanayeen toogashada ay sameeyeen ciidamada Soomaalida iyo sidoo kale kuwa Eritreanka ama Itoobiyaanka siyaasiyiinta gobolada waqooyi weerar afka ay ku qaadeen ra'iisul wasaare Roble eeda kala duwan oo dhanka siyaasadda ay u jeediyeen waxaan idin soo gudbin doonaa eedaha ay jeediyeen siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee gobolada waqooyi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ilmada iyo xaaska ayuu ku tilmaamay faalla dhawaan uu soo saaray Fahad Yaasiin waxaan eegi doonaa faallada Fahad Yaasiin waxyaabaha ay ku qotontay يا عبد الرحمن عبد الشكور قابك ونقدي إسلام مركانا وقلت المامي إني أحيد المدى يحاسك روشك يا مريكان كرة وده هذا اللذو دي أتكا أي يشن وحانا لسوشيغ يا إندي نعيدو أي قرد إزدري ولو روشكو ورشو كموشي يقول لغا جارو وده هذا اللذاس قد بدس أيات كدا وندونتان وركياغي أنكو بلابو ciidamada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka dirireen xasuuq ba'an ka geysteen gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigray ciidamadan Soomaalida ayaa loo maleynayaa inay yihiin kuwa lagu tababarayay gudaha wadanka Eritrea xubnaha ka tirsan qaramada midoobay siyaasiyiinta mucaaradka ee dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiinta Tigrayga iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan ayaa horay ciidamada Soomaaliya ugu eedeeyay inay ka qayb galeen dagaaladii ka dhacay gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigray dagaaladaasi ayaa waxa la rumaysan yahay in isbahaysiga saddex geesoodka ee u dhaxeeya Afwerki Abi iyo Farmaajo ay qayb ka noqdeen isla markaana waxa si toos ah loo og yahay lana rumaysan yahay ciidamada Eritrean inay ka dagaalameen gudaha wadanka Itoobiya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya wali shaki weyn ayaa ku jira waxa soo baxaya cadeymo waaweyn oo muujinaya in dagaalkaasi ay ka qayb galeen wargeysi caalami ah oo soo xigtay dad goobjoogayaal isla markaana xilliga dagaalku dhacay ku sugnaa gudaha gobolka Tigray ayaa laga soo xigtay in gudaha gobolkaasi ay galeen ciidamo Soomaali ah oo garabsanayay kuwa Eritrea dhanka Eritreana ay dagaalka ka soo galeen waxa sidoo kale dhinacyada ay sheegeen in ciidamada Soomaalida ah ay si toos ah u bartilmaameedsanayeen kaniisadaha iyo sidoo kale baadariyaasha isla markaana waxa la soo wariyay ayna dhinacyadan goobjoogayaasha xaqiijiyeen in baadariyaal tirabela ciidamada Soomaalida ah ay ku gowraceen gudaha kaniisadaha ee gobolka Tigrayga ee waqooyiga Itoobiya waxa sidoo kale ay sheegeen dhinacyadan la soo xigtay oo ka kooban goobjoogayaal iyo siyaasiyiin Tigray ah sababaha lagu kala garanayay ciidamada Soomaalida iyo kuwa kale ee Eritreanka ama Itoobiyaanka dhinacyadan waxay sheegeen in ciidamada Soomaalidu ay yihiin kuwa ku fudud marka la fiiriyo dagaalka iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxay sheegeen ciidamada Eritreanka in ay ahaayeen kuwa garanaya luqadda isla markaana Tigrayga ay si fiican u wada hadlayeen ay wareysanayeen dadka kala saarayeen isla markaana ay beegsanayeen dadka ay u arkaan inay yihiin kuwa muhiim ku ah beegsigooda balse waxay sheegeen in ciidamada Soomaalida aysan waxba ka garanin luqadda isla markaana ayba adkayd in ay kula hadlaan iyagoo sheegay in ay qof walba oo ka hor yimaada tooganayeen ciidamada Soomaalida wargeyska ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in la xaqiijiyay in ciidamo kala duwan oo gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ama gudaha jamhuuriyadda laga qaaday iyo sidoo kale kuwa dawlad deegaanka ay ka qayb qaateen dhinacyo fara badan oo arrimahan isha ku haya ayaa ku doodaya in ciidamada Soomaalida ee lagu arkay gudaha Itoobiya ay yihiin kuwa ka tagay dhanka dawlad deegaanka balse waxa dhinacyadu ay ku adkaysanayaan inay yihiin kuwa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay u dirtay dhanka Eritrea halkaas oo tababaro lagu siinay sawiro iyo muuqaalo dhawaan la soo bandhigay ayaa muujinaya ciidamadaas oo ku sugan buuraley aad halis u ah waxaana laga yaabaa in dhawaan lagu soo celiyo badankooda gudaha dalka walow qayb kamid ah la keenay ilaa iyo hadda ma jirto cod si rasmi ah u xaqiijin karta in ciidamada Soomaalida ay ka qayb qaateen dagaalkaasi balse xogahan soo baxaya ayaa iftiiminaya in xogahaasi ay yihiin kuwa la rumaysan karo ayna jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka qayb qaatay dagaaladaasi Soomaalida ayaase ku kala duwan habka looga jawaabaya arintaasi qaybtood waxay u arkaan arin soo dhaweyn mudan in ciidamada Soomaalidu ay u argudeen boqolaal ama kumanaan qof oo Tigraygu Muqdisho gudaheeda iyo gobollo kala duwan ay ku dileen
dadka qaybtoodna iyagoo dhanka siyaasadda ka eegaya ayay ku eedeynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. siyaasiyiinta gobolada waqooyi iyo odayaashooda dhaqankuna waxay weerar afka ku qaadeen ra'iisul wasaare Roble eeda kala duwan ayayna u jeediyeen ra'iisul wasaaraha Boqor Buurmadow oo ah dhaqanka ugu sareeya beelaha dir gaar ahaan beelaha Isaaq oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa gadaashiisa tagnaa xubno uu ka mid yahay senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee dalka haddana musharax u taagan in mar labaad uu hogaamiyo aqalka sare ee dalka xubno kale oo senator oo ka mid yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye guud ahaanba dhinacyadan iyo odayaal dhaqan oo kale waxay si toos ah eeda ugu jeediyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay ku eedeeyeen in uu ku hayo faragelin baahsan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan kuwa gobolada waqooyi. Boqor Buurmadow oo si adag u hadlay waxa uu sheegay in gobolada waqooyi odayaashooda iyo siyaasiyiinta waaweyn ee wax badan soo joogay magaalada Muqdisho iyaga oo midnimada dalka ilaalinaya in uu soo baxay wiil yar oo hadda ra'iisul wasaare laga dhigay siyaasadda aan qaangaar ku ahayn isla markaana uu adeegsanaya awoodo kala duwan. waxa uu sheegay in dhammaanba wax walba oo odayaasha dhaqanka gobolada waqooyi iyo siyaasiyiintoodu ay qalinka ku duugeen lagu bedelayo xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaana laga tirtirayo dhammaanba xubnaha ay doonayaan. waxa sidoo kale dhinacyadan ay si cad u sheegeen in muhiim ay tahay ra'iisul wasaaraha iyo dhinacyada kale ee siyaasiyiinta ah ee xafiiskiisa ku sugan inay farageliyaan inaysan faragelin doorashada gobolada waqooyi. Boqor Buurmadow ayaa sidoo kale si cad waxa uu sheegay xubno siyaasiyiin oo beesha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in ay markan faraha kula jiraan in ay beeshooda boobaan isla markaana dad uu ku sheegay seediyaal ama abtiyaal loo yahay la soo saaro xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuuna boqorku sheegay in arrintaasi ay si baahsan uga shaqeynayaan waxayna sheegeen siyaasiyiinta gobolada waqooyi iyo dhaqankooda iswato Boqor Buurmadow iyo Cabdi Xaashin ay hogaaminayaan in gabi ahaanba ay qaadiceen arrimaha doorashada Soomaaliya isla markaana aysan ka qayb gali doonin si cad ayayna u sheegeen in arrintaasi ay biyo kama dhibcaan ku tahay dhankooda ayna doorashadaasi toos uga bixeen. beesha caalamkana waxay ka codsadeen in gabi ahaanba la soo farageliyo qaabka ra'iisul wasaaruhu uu wax u wajahayo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajirna waxa uu ilmada iyo xaaska ku tilmaamay faala dhawaan u diyaariyay Fahad Yaasiin. la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ahaana taliyihii hore ee NISA ayaa ka sheekeeyay muddo 3 sano ah oo uu leelinayay hay'adaasi iyo waxyaabihii iyo guulihii uu gaaray. Fahad ayaa waxa uu ciwaanka ka dhigtay in uu wax wanaagsan sameeyay isla markaana hay'adaasi wax wanaagsan xilligan laga filan karo. waxa uu sheegay tillaabooyin wax ku ool ah oo dhanka sirdoonka ay sameeyeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo qaabka ay u soo qabteen xukunada la mariyay iyo sida ay u dhiseen hay'adaasi. balse Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay gabi ahaanba wax walba oo Fahad faaladiisa ku sheegay inay yihiin ilmada iyo xaaska. waxa uu ku qaaday weerar ah in dhowr jeer madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaciisa uu soo geliyay faaladan uu qoray isagoo sheegay meel aan munaasab ahayn in magaciisa uu ku xusay balse taas ay ka dhigan tahay inuu doonayo in Farmaajo bal wanaagsan ku eego isla markaana uu kala shaqeeyo sidii uu soo noqon lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxa uu sheegay in xilligan Fahad Yaasiin uu liicay isla markaana uu doonayo qoraaladiisu inay noqdaan kuwa soo jiita madaxweyne Farmaajo isla markaana uu ka dhaadhicinayo in arrimaha doorashooyinka gaar ahaan kursigiisa uu kala shaqeeyo. Cabdishakuur waxa uu sheegay qoraalada uu qoray inay yihiin kuwa beer la xawsiya isla markaana waxa uu ku tilmaamay ilmada iyo xaaska. waxa uu sheegay inay ka muuqato quus weyn iyo in uu ka niyad jabsan yahay hanaanka xilligan dalku u marayay iyo doorashooyinka la aaday isagoo sheegay in isaga iyo madaxweyne Farmaajo aysan doonayn dalku inuu doorasho aado. Ruushka iyo Mareykankuna wada hadallo adag ayay yeesheen walow Ruushku xilligan uu guul ka rajeeyay in wada hadalladaasi ay ku soo dhamaadaan. dhinacyo kala duwan oo ka socda labada dawladood ayaa ka wada hadlaya waayihii u dambeeyay iyo hadallo xanaf leh oo dhinacyadu ay isdhaafsanayeen. Ukraine ayaa ah ubuucda khilaafka xilligan ee labadaasi wadan. Mareykanku waxa uu wataa 30 dal oo NATO. Ruushku se waxa uu muuqdaa in kaligiis uu gooni taagan yahay. Putin waxa uu sheegayaa mar walba inuu tilaabo qaadi karo
maraykankuna waxa uu ku hanjabayaa inuu qaadayo argoosi weligiis Putin isu arkin isla markaana dhanka militariga oo in ka badan 30 wadan uu ku kalsoon yahay inay ka qayb qaadanayaan iyo sidoo kale cunaqabatayno ka yaabin doona Vladimir Putin ka hogaamiya wadanka Russia aqalka criminalka iyo aqalka cad waxay isdhaafsanayaan hanjabaadaan caadi ahayn balse waxa loo arkaa Ruushku in mar walba uu tallaabo qaadi karo walow Maraykanku u haysto dhinacyo kala duwan iyo garabyo siyaasadeed oo uu ku ciqaabi karo Ruushka haddii uu qaado tallaabo aan raali gelin warka wadanka TV-na waa intaas nabadgelyo